maanta oo ay tahay taariikhda 23 bisha sagaalaad 2018 waxaa xafiiska madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug ahna kusimaha madaxweynaha Galmudug mudane Maxamed Xaashi Cabdi ka soo baxay war-saxaafadeedkan halkan aan ku hayo. war-saxaafadeedku wuxuu qoran yahay sida tan: xilli bilihii aan ka soo gudubnay uu jiray khilaaf xoogan oo u dhaxeeya madaxweynihii hore ee Galmudug mudane Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo madaxda dowlad goboleedka Galmudug oo ay ku kala aragti duwanaayeen hanaankii uu u wajahay khilaafka dowladaha khaliijka iyo heshiiskii Djibouti habkii loo fulin lahaa kaasoo ilaa maanta socda sababayna ragaadin horumarin la'aan iyo dib u dhac iyo dhibaatooyin la soo darisay shacabka deegaanada Galmudug. waxaan soo dhaweynaynaa gogosha wada hadal ee uu fidiyay kuna baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaan cadeynaynaa in dhankeena aan diyaar u nahay ka qaybgalka wada hadalladaasi uu ku baaqay madaxweynaha. waxaan cadeynaynaa in dhibaatooyinka Galmudug haysta ay tahay mid ka dhalatay siyaasad xumada, jahawareerka iyo cadaalad darrada madaxweynihii hore ee Galmudug mudane Axmed Ducaale Geelle Xaaf uu ku kacay iyo damaca ururka Ahlus Sunna wal Jamaaca oo ay ku doonayaan in Galmudug ay noqoto wax kooxi leedahay. waxaan cadeynaynaa in dhibaatada ay xudun u tahay kadib kolkii lagu gacan sayray fulintii heshiiskii Djibouti la dhinac marayna waxyaabihii lagu heshiiyey. waxaan ugu baaqaynaa kooxda fadhida Dhuusamareeb in ay xaqiiqda wajahaan iskana daayaan geed ku hiigsashada iyo madax geed ku garaaca eedaha aan loo meeldayin. waxaan sidoo kale cadeynaynaa dagaalkii dhacay 19 bishii sagaalaad 2018 ee ka dhacay deegaanka Docdheer oo ay wada deganaayeen dad walaalo ah iyo duulaankii lagu soo qaaday magaalada Cadaado ay ku waxyeeloobeen dad walaalo ah iyo khalalaasaha ka socda magaalooyinka Galmudug oo ay mas'uul ka yihiin kooxda Dhuusamareeb fadhida. waxaan ugu baaqaynaa madaxda dowlad goboleedyada in ay dhexdhexaad ka ahaadaan arrimaha Galmudug oo aan loo adeegsan burburinta iyo baabi'inta Galmudug, mana jirto golo iskaashi oo Galmudug ay xubin ka tahay. ugu dambeyntii dowladda federaalka Soomaaliya, madaxda dowlad goboleedyada, beesha caalamka iyo dhammaan bulshada reer Galmudug in ay si dhow ula socdaan dhibaatooyinka ka jira Galmudug iyo cidda mas'uulka ka ah ee tallaabooyinkaasi ka qaataan tallaabooyin cadcad iyo go'aano mahadsanidin.